gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka Xalimo Ismaaciil Ibraahim Xalimo Yarey ayaa golaha shacabka u faahfaahisay heerka ay marayaan howlaha u diyaar garowga doorashooyinka dalka, habraaca doorashooyinka la xiriira diiwaangelinta xisbiyada, wacyigelinta iyo sidoo kale diiwaangelinta codbixiyaasha iyo weliba nooca codbixinta ay noqon doonto doorashada marka dalka ay ka dhacayso. waxayna Xalimo Ismaaciil Xalimo Yarey sheegtay in iminka ay qorsheeyeen in ay dhacdo doorasho nooceedu ay tahay biometric registration. waxaan tilmaam wanaagsan oo ku dayasho mudan ah in ku dhawaad 100 xildhibaan ay xubno ka yihiin ama ay hogaaminayaan xisbiyada sida ku meel gaarka u diiwaan gashan. taas waxa way ididiilo loo muuqatay oo na tusinaysa xildhibaanadeena qaranka inay diyaar u yihiin in doorasho la qabto sanadka 2020 oo ayagiiba ay xisbiyadii ka mid yihiin maanta ay dardar gelinayaan. waxa waaye iftiin fiican oo na tusinaya inaan u diyaarsanahay oo aan rabno in doorasho ay wadanka ka dhacdo. arrimaha wacyigelinta qodobka saddexaad waxa waaye arrimaha wacyigelinta codbixiyaasha. waxaa la sameeyay daraasad iyo la tashi badan kadib guddigu wuxuu ku guuleystay inuu dhammaystiro qoridda manhajka waxbaridda codbixiyaha, agabka iyo qorshayaasha tilmaamaya hanaanka loo marayo dhammaan ololayaasha wacyigelinta ee codbixiyaha. qodobka afraad ee noo suuragalay waxaa waaye arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha. daraasad iyo wadatashi dheer kadib guddigu wuxuu go'aan ku gaaray nooca diiwaangelinta codbixiyaha taasoo noqonaysa nooca biometric registration ee loo yaqaan aaladda aqoonsiga wajiga qofka face recognition. habka oo lagu xaqiijinayo in muwaadinku xaq u helo codeynta uu helo aqoonsi aan minguurin karin oo ku salaysan aqoonsiga wajigiisa. guddigu wuxuu ku doortay noocan dhinacyada sahnalaanta, hufnaanta, qiimaha arrimahaas oo dhan aan aad uga tashano oo aan fiirinayno. qodobka shanaad goobaha diiwaangelinta codbixiyaha iyadana howlaan ka qabanay. guddigu wuxuu sahmin hawada satellite image ku sameeyay goobaha noqon kara xarumaha loo asteyn karo diiwaangelin codbixiye isla markaasna loo isticmaali karo xarumo codbixiye. wuxuu hadda guddigu ku howlan yahay in uu hubiyo xarumaha u qalma in ay noqdaan xarumo diiwaangelin oo dhab ah, kuwaasoo laga heli karo arrimaha muhiimka u ah diiwaangelinta sida amniga, adeegyada iyo gaaritaanka.